tani waa Tajikistan tanna waa Kyrgyzstan laba wadan oo deris ah balse midba midka kale uu kala dhaxeeyo dagaal iyo muran dhanka xuduuda ah hal neef oo ari ah oo u kala gudba labada xuduud ayaa ka dhalan kara dagaal labada dhinac ah kamana maqna meesha inay xuluf leeyihiin Russia oo ay qaybna ku leedahay go'aamada waaweyn xukuumadda Moscow waxaan ku soo gudbin doonaa dagaal dhaxmaray labada wadan oo cajiib ah balse intaanan u gudagelin aan ku yara sharaxo macluumaad ku saabsan labada wadan Tajikistan waxay dhacdaa bartamaha Aasiya waa dawlad aan lahayn bad taariikhdii hore waxay ka tirsanayd midowgii burburay ee Soviet kadibna waxay noqotay dawlad 1991 guud ahaan waa dawlad Almaani ah balse 89% dadka ku nool oo lagu qiyaaso 9 milyan waa muslimiin laakiin ka go'itaankii midowgii Soviet kama reebin inay xuluf siyaasadeed iyo mid ciidanba ay la yeelato Ruushka kuna darso waxa lagu tiriyaa waxa loo yaqaano beerta dambe ee xukuumadda Moscow waana mid kamid ah wadamada ku midoobay gulufka amni ee uu hogaaminayo Ruushka intaana waxay wadaagaan wadanka uu dagaalku kala dhaxeeyay ee Kyrgyzstan isaguna sidoo kale waa dawlad aan lahayn bad wuxuu kamid ahaa xulufkii midowgii Soviet wuxuuna ka go'ay sanadkii 1991 dadkiisu ku dhawaad waa 6.5 milyan waxayna haystaan diinta Islaamka waana dawlad leh dhul beereed ku wanaagsan beerashada kuna darso dhibka kaliya ee isku haystaan dawladda deriskeeda waa halkan laga soo bilaabo waagii ay ka go'een midowgii Soviet labada wadan ma aysan samaysan wax xad kala gooya xuduud dhirarkeedu uu gaarayo 970 kilomitir saddex u dhig meel kamid ah xadka ayaa ah meesha la isku haysto sababta ugu weyn ayaa ah in uu maro waadi lagu magacaabo Fargana waana waadi isku dhaxmara saddexda wadan ee Tajikistan Kyrgyzstan iyo Uzbekistan wadan walbana waxa uu doonayaa inuu qaato qaybta ugu weyn taariikh ahaan dadkii halkan ku noolaa waxay inta badan ku tiirsanayeen webigan dalaga ka soo go'a beeraha ku xiran webigan iyo dhaqashada xoolaha marka la gaaro xilliga xagaaga oo ay yaraadaan biyaha waadiga qaar kamid ah beeraleyda ayaa raadiyo ila biyoodi kale gaar ahaan webiga Isfara oo isaguna aad loogu muransan yahay laakiin dadka reer beeraleyda kuma milmaan siyaasadda mid walbo iyaga kamid ah waxa uu sameystay khad xuduud u ah oo aysan u soo dhaafi karin halkaas ayuuna ku beertaa dalagiisa kuna raacdaa xoolihiisa dagaaladii halkan ka dhacay waxa kamid ah kadib markii mid kamid ah beeraleyda reer Tajikistan uu xoolihiisa ku raacday meel u dhow xuduudda Kyrgyzstan kadibna xoolihiisa ayaa ku tagay beeraha Kyrgyzstan taasoo sababtay inay dilaan xoolaha waxaana ka dhashay isku horimaad labada dad oo ay isku tuurayeen dhagaxaan kadibna waxaa soo dhaxgalay ciidamada labada dhinac ee ilaaliya xuduudda iyaga oo furay rasaas ilaa haddana uu dagaalku qarxay mar kale sanadkii tagay ee 2021 sababtana waxaa lagu sheegay in dadka ay ku qanci waayeen in xuduudda lagu rakibo kaamirooyinka wax ilaaliya is-afgaran waaga kadibna waxaa qarxay dagaalka oo ay ka qayb qaateen ciidamada labada dhinac waxaana ku dhintay 3 ruux oo labada dhinac ah iyo dhaawac kale oo gaarayay 10 inkastoo dagaalku uu galay maalinkii labaad haddana waxaa ku dhintay 40 ruux oo labada dhinac ah waxayna sabab u noqotay inay qaxaan ku dhawaad 10,000 oo halkaa ku noolaa laakiin arrinta ayaa degtay kadib markii ay soo dhex gashay xukuumadda Moscow kuna amartay xabad joojin qaar kamid ah dadka aqoonta u leh siyaasadda bariga iyo bartamaha Aasiya ayaa ku sheegay in khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ay tahay danta Ruushka iyagoo yiri Ruushku waxa uu leeyahay hami juqraafiyadeed oo caalami ah ogowna iyadoo jirto in labada dhinac uu guluf kala dhaxeeyo sanadka hadda curtay ee 2022 ayuu haddana dagaalku qarxay mar labaad sidii kuwii hore oo kale waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac balse markan waxaa si degdeg ah u soo dhaxgalay xaaladda xukuumadda Moscow iyadoo ku dhawaaqday xabad joojin sababtoo ah Ruushku waxa saaran culays ka weyn kan oo ah dagaalku uu ku qaaday dalka Ukraine oo uu hami ka leeyahay inuu qabsado